muuqaalkan waxaan u malaynayaa inuu noqon doono muuqaalkii ugu dambeeyay ee abid aan kaga hadlo ninka Cabdi Iftiin la yiraahdo. Daraadeed waxaan rabaa inaan dhowr arrimood oo ninkan ku saabsan aan idiin sheego kadibna aan iska daayo hadalkiisa. Sababtan isaga deynay waxay tahay umu qalmo in badan laga hadlo. Sidaa daraadeed ninkan waxaan muddo badan oo kala duwan aan time ku bixiyay inaan ogaado qofka uu yahay. ayaantii hore wixii aan u baarayay waxa ugu badan waxay ahayd in ninka ummadda inta la eg ay daba socoto isla markaana dhalinyarada madax baan u ahay ku haya oo ummadda horboodaya waliba the younger generation-ka inuu yahay qof diintiisu ay su'aalo badan ay ka taagan yihiin. muuqaaladan hadda ugu tirada badan ee la soo gogoonaya ee la wado oo uu leeyahay bahasha Kirishtaanka ee istilaabta gaarigan gashtaayo ummadda waan ka qariyaa iyo ilaahay muxuu naag u ahaan waayay hadii diinta islaamka ay cadaalad tahay iyo waan ku daalay ilaah iyo nabigan ninka ah iyo waxaas uu ninkan hadda u sheegayo ee dadka maalmihi la soo dhaafay igu soo meeshan gareynayaan waxaas ana banaanka keenay. xogaha ninkan ugu tirada badan ee dadku hadda ay faafinayaan nambarkooda ugu badan ragii keenay banaanka ka mid ah. marka mid waan fahmaa laakiin kuwa kale fahmi waay. mid waan fahmay ninkan waa gaal qof la gaalaysiinaya mid yaro sheekh u ego waxaa jira waxa ka sheekeeya Cabdi Iftiin waa gaal sheekhan weydiinaya ma jirto ama iga cilmi badnow ama iga cilmi badnaanin. Cabdi Iftiin waa gaal inuu gaal yahay ilaahay ku kufriyay nabi maxamed buu caayay aayadihii quraanku beeniyay ninka Soomaaliga ah oo muslimka maanta na oranaya inta laguma gaalo wax soo baxo. Cabdi Iftiin waa gaal simple as that. laakiin waxaan garan waaya ninkan gaalnimada maxaa u raaca way dabeecadiisa markaan fiiriyo waxaan arkayaa waxyaalo ka baxsan gaalnimada. waxaan is weydiiyay markaan iyo maxaa gaalnimada raacsan muddo badan baan baaraya. waxyaalaha aan ka shakiyay qaar badan oo kamid ah ayaa hadda baraha bulshada ay xoog u yaacayaan maadaama dad hore aan kaga hadlay ama aan uga shakiyay inay qomluud yihiin qof walba iraahdo qomluud weeye oo kale waxyaalaha aan ka xishooday bay kamid tahay. guriga ninkan uu ka degan yahay gobolka Maine la yiraahdo ninkan odayga cadaanka iskale dadku aad bay hadda igu soo meeshan garanayaan. ninkan guriga uu degan yahay saddex qof baa degan adreeska ku diiwaan gashan mid waa asaga mid waa gabadhiisa midna waa Cabdi Iftiin oo inuu ayaga la joogo laakiin familkiisa aan usan ahayn ay ka muuqato public information. xaaskiisa la degnaan jirtay 2022 bay dhimatay. wixii ka dambeeyay awal 4 bay ahaayeen wixii inta ka dambeeyay guriga 3 bay ku degan yihiin. saddexdooda marka dad ka mid ah ee guriga degan ayaa qoomaluud ah sida laga arkay calanka banaanka soo. marka gabadhu ma fid garanayso ma garanay marka Cabdi Iftiin iyo odayga cadaanka wax ka dhaxeeya ma garanayo laakiin su'aal weyn ayaa dul saaran ummadan u deenaya ma doonay inaan xugmiyo. inta markii aan ka soo tago Cabdi Iftiin wuxuu galay crime loo baahan yahay in maxkamadda dawladda Mareykanka markaas la horgeeyo oo maxay tahay. Cabdi Iftiin wuxuu encourage gareyn jiray wuxuu dhiirigelin jiray in dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ay qaab sharci darro ku soo galaan. hadalkaas aan ku celiyo wuxuu encourage gareyn jiray wuxuu taageeri jiray wuxuu instructions u siin jiray wuxuu soo galay oran jiray dad badan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo uu dalkan sharci darro ku soo gala uu oran jiray. waxaan hayaa ilaa 10 muuqaal oo qaar badan oo kamid ah uu bariisa bulshada uu ka bixiyay oo uu ku encourage gareynayo kuna tusaaleynayo dhalinyaradu inay sharci darro ku soo galaan. haddaba arrintaas ma sharci darro ah gudaha dalka Mareykankana say ka tahay. arrintaas waa sharci darro qofkii lagu ogaado inuu dalkan dad uu ku encourage gareeyay ama uu ku dhiirigeliyay iraahday inay sharci darro ku soo galaan waa felony waa mid kamid ah dambiyada ugu waaweyn oo la galo. dambigaas from 5 years ilaa 25 years inta u dhaxaysa
ayuu noqonayaa qofka arrinta ku suntan qofkii la ogaado dadka inuu ku dhiirigelin jiray dalka inay sharci darro ku soo galaan 5 sano ayay ka bilaabtay xabsigiisa muuqaalkan ay gaarsiiyay saaxiibayaal ninkoo laga ah Soomaali cowboy asama taqaana Mareykanka iyo arrimahaas nooga fiican kaliya yani fikrada ugu soo dhacday oo ah sidee ardayda Ruushka ku nool ama Ruushka joogta oo yani dhankan iyo Belarus iyo Jarmal aada Mareykanka yani ma u haweysan karaan ardayda Soomaalida ah oo Belarusia ama Ruushka ama Poland ama Germany aagaas joogo walaalaha bal dhigaa fura Ruushka iyo Mareykanka dhankaan xuduudka leeyihiin sida ogtihiin dhanka Alaska oo gobolka ugu weyn dalka Mareykanka laakiin xuduudka caalamiga ah rasmiga ah ee Mareykanka iyo Ruushka u dhaxeeyo waa 3 kilomitir waay 3 kilomitir bas waa lambar 4 iyo waa Berlin waay xilliga qaboobaha xilligan oo kala hadda ku jirno barafka lug waa lagu soo gudbi karaa I'm not kidding kafta ma laakiin waxay qaadanaysaa adiga 3 maalin ilaa 4 maalin oo socod ah okay marka hadda si uun hadda Mareykanku imaatid xitaa dhanka Mexico hadda awoodid passport Ruush ama residency ama deganaansho Ruush ku imaan kartid Mexico ani imaa ku dhihi lahay derbiga soo bood marka derbiga Mexico ka soo boodid isla markii Mareykanka tus in aad tahay qof arday Ruushka dhiganaya laakiin nafsadiisa uga baqay in militariga la geliyo Ukraine uu ka dagaalamo ani waxa ku dhihi lahaa 100% Mareykanku wuu ka aqbalaya kiiskaas wuu ka aqbalaa jira nin weyn oo lawyer ah oo gobolka California la yiraahdo sanadkan loo xiray oo 25 years la xiray maadaama uu dadka ku encourage garan jiray inay sharci darro ku soo galaan Cabdi Iftiin arrintaas ku suntan yahay marka ninkii dadkiisa colaysta been ka sheega Ilaahay baa soo qabanaya umadiisii buu dhakray been buu ka sheegay anigu dadka Mareykanka degan baan kamid ahay muddo badan baan deganahay xoolo dawladda kama cuninin canshuur leeyihiin ma cuninin weligii food stamp kama qaadanin benefit leeyihiin ma cuninin kumanaan kun oo Soomaaliyeed oo dalkan degan baan ila mid ah marka dadka Soomaaliyeed ayaa tuuga ah wa hadal gaf umada Soomaaliyeed ku ah waana inuu price-keeda u bixiya biidni Ilaahi tacaala markaysa marka ninkaanu waa ninkaas dambigaas uu ku jira kiiskana waa laga shaqeynayaa oo dabku saaray marka ninkan umada Soomaaliyeed waa laga qaban doonaa aad baan in salaam ya meel ugu joogtaan isagoo muuqaalkii markaa idin soo gaariyo